maxkamad ku taalla magaalada boosaaso ayaa shalay riday xukun dil ah oo lagu xukumay faarax maxamuud yuusuf dooxajoog oo hogaamiya maamul goboleed la magac baxay raas caseer oo sheegay sanadkii hore inay ka go'een puntland maxkamadda ayaa faarax dooxajoog iyo 10 kale ku soo xoogtay shirqool lagu kala goynaya puntland iyadoo 10kii kalena lagu xukumay xabsi daa'im haddaba waryahayaga saare cabdi axmed oo stuudiya ugu helisa ayaa qadka telefoonka goordhoweyd kula xidhiidhay faarax maxamuud yuusuf dooxajoog oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ugu horreyna waxay weydiisay waxa uu kala socdo xukunkaasi. xukunkaas waxaan ka maqlay meediyadan ka maqlay anigu wararkaas meediyadan ka maqlay waxaan wax kala socdo ma ahayn shalay baan maqlay waxa warkaas wuxuu yahay shalay galabti marka cid kula soo xiriirtay ama kaala hadashay ama war horad u haysa midna ma jirto war hore iyo cid la soo hadashay iyo cid maanta waxay jirin iyo midna toona ma jirto maxaad u malaynaysaa arrintan inay ka dhalatay arrintan waxay ka dhalatay waxa weeye wax laga hadli karo ma waa wax foolxumaa weeye waxay ka dhalatay waxa weeye ulajeedu waa lagu leeyahay ulajeedada laga leeyahayna waxa weeye maamulka raas caseer waa maamul sanad soo jirsaday oo sanad jiray aan u dabaaldegnay sanad guuradiisii shaqooyinkiisa wata deegaankiisa u shaqaynaya dabadeed hadda waxaa la maleegayaa waxa weeye in raas caseer dagaal lagu qaado taas baana keentay in mataqaan arrintaas ay hadda bilaabaan sabab looga dhigo oo dagaal loogu qaado raas caseer baa la maleegayaa sababta waxa weeye waxaanu ka hor istaagna burcadbeedii waayo waa sida lala socoto oo soomaalidu dhammaan meel kastay dunida ka joogto ay la socoto maamulka faroole waxa weeye wuxuu ku dhisnaa burcadbeedina dhulkaas waa ka saarnay maalin dhoweyd baa ugu dambeysay 3 laash bay soo dirsadeen wixii ka dhacayna waa la ogaa marka arrimaha keenaya waxa weeye maadaamaanu ka hor istaagnay wixii ay xumaa ay ku shaqaysan jireen inaanu bay waxay rabaan inay dagaal ku qaadaan raas caseer maxkamadda waxay ku eedeysay adiga iyo maamulkaaga dad horey loogu dilay deegaanka raas caseer in la idin haysto sidoo kalena ay jiraan 9 ruux oo xabsi daa'in lagu xukumay oo ku jira xabsiyada Puntland marka arrintaasi maba jirto miyaad leedahay arrinta dagaalka waxay soo qaadeen bishii 8 ee sanadkii hore maalin soo qaad bay ahayd waxay ka soo duuleen boosaaso oo u jirta baargaal 500 kilomitir halkaa waxay dagaal bay kusoo qaadeen dagaalkii halkaa kusoo qaadeen iyagana dad baa laga laayay umulisadii deegaankaasna waa ku dileen umulisadii baargaal oo qof da ah oo muddo kasoo shaqaynaysa caanka ah bay halkaa ku dileen arrimaheeda iyo wixii ka dhacay iyo waxay sameeyeen oo dhanna waxaan u gudbinay maxkamadda adduunka heeg bay jirtaa 4 wasiir iyo 22 technicada ahaa iyo askartoodii iyo wixii oo dhan documentigii oo dhan waxaan u gudbinay heeg baan u gudbinay iyo international community intaba waa sii 9 qof ee haatan la dhigay xabsiga Puntland ee la leeyahay xabsi daa'in ayay maxkamaddu ku xukuntay maxaad kala socotaa maamulkaaga inay yihiin ayaa la sheegay maamulkay ahaayeen waa wiilash golihii deegaanka nimankii deegaankaas ka saaray burcadbeeda shaqadii ugu horeysay ee maamulka raas caseer uu ku tallaabsaday waxay ahayd in deegaamada raas caseer laga saaro burcadbeedii dhalinyaradii ammaanka saxaysay oo nabadgelyada ilaalinaysay oo burcadbeeda saarto weeye nimanka ay soo qabteen laakiin Puntland waa maamul ma laga yaabaa in isqoraansi hoose oo dhinacyada maamulada la xiriira inuu idin dhaxeeyo oo sheekadu aysan ahayn burcadbadeed oo kaliya iyo wax la halmaala hadda wax kasta ha ku qariyo qofku wax kasta ha ku qariyo laakiin waxa weeye kolleyba arrimaha ugu waaweyn oo hadda ay kaga soo horjeedaan raas caseer waxa weeye waa kasaaridii burcadbeedii oo aan la dagaalanay saarisan oo aan diidnay iyo haddee deegaankaasi waa deegaan aada u khayraad badan Puntland aan maqashay waxa weeye waa udugna wuxuu ka baxaa waa dhulkaas weeye magacii waxa wata khayraadka ugu badan kaluun ha noqoto lugaan ha noqoto xabag ha noqoto timir ha noqoto warshada ha noqoto dhuxul ha noqoto waxa weeye waa dalka ugu khayraadka badan ee deegaanadaas weeye sidaa darteed nina kuma ogolo inay waxay iskaga haysteen hostage bay ku haysteen dalka intaas leegi iskuul ma lahayn caafimaad ma lahayn biyo ma lahayn waxa weeye waxay u dagaalamayaan waa waxaas weeye waxay ku haysteen hostage bay u haysteen dalkaas waxaad joogtaa haatan magaalada muqdisho marka goorma laga yaabaa inaad deegaanka gaarto mise waayadan waxaad joogi doontaa muqdisho waxaan jeclahay sida ugu dhaqsaha badan inaan u tago hadda halkan waxaan u joognaa maada Soomaaliland halkan wax ku wada qaybsanayso lagu dhisaayo dawlad la jecel yahay in la dhiso dawlad Soomaaliyeed ismadii dhaqanka Soomaaliyeed la isugu keenay waxaanu arrintaasaan u joogay meesha oo aan kala shaqeynayo madax dhaqameedyada iyo dawladaba
anagu waxaan jecel lahay inay soomaaliya sharafteeda iyo midnimadeeda iyo qarnimadeeda ay soo noqoto ismaduna ay si cadaalada wuxu sameeyaan soo xulaan dad mataqaan soomaaliya dan u ah arrintaasaan u joogaa laakiinse sida ugu dhaqsaha badan baan u tagayaa deegaanka insha allah. maxay kugu keeni kartaa oo saameyna xukunkan dilka ah ee Puntland ay sheegeen in lagugu fulinayo? waxba iguma keeni karto anigu ma qaboba sababta waxa weeye anaga iyo Puntland waxaan isu nahay baaba iska yarba cashaan maamulka Faroole iyo anagu wax naga dhaxaya ma jiro usagay ku tahay sharaf darro iyo dee wax kaleeba wax ku sababay waxa sababta waataan ku sheegay waxa weeye waa dagaal laakiin usagay sharaf darro ku tahay in dad degaan oo danahooda ka tashaday oo gaaray go-aan inay danahooda iyagu mustaqbalkooda iyo aayahooda ka tashadaan in la yidhaahdo qofkii ay legitimate u doorteen عشان إنه يراهو ماشي محكمة بان سارية مدحوين عنك إلى مدى